بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي habboon wadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka NTN wararka miinnimadan idin ayana waxa ugu dooron xogtii u dambeysay shakhsiga noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo la iftiimiyay xildhibaano dalab xasaasi ah oo ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil ka horjeediyay golaha shacabka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya waxa uu maanta ka badbaaday dil kadib weerar uu sheegay in lagu qaaday mid kamid ah ergadii soo dooratay xildhibaan Mahad Salaad oo maanta lagu dilay Muqdisho Professor Abdi Wahab oo ka hadlay afduub uu sheegay in lagu geystay dalka Kenya oo ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya faahfaahinaya kaga hayna Somaliland waxay xabsiga dhigtay wariyaal ka soo jeeda Puntland faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay deegaanka Bacda ee gobolka Hiiraan wararka dibadda ay diinayna waxa kamid ah Ruushka oo hub halis ah ku garaacay Ukraine maxay yihiin dadka qayb galay xaflad aroos oo mar qura la wada afduubtay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan ee ku soo dhawaada warkeen waa 13 bisha 6 sanada 2022 ku soo dhawaada qodobada hore ee kugu dul maray oo faahfaahsan golaha shuurada xisbiga UPD ayaa ka shiray go'aan ay ka gaareen shakhsiga noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya sida ay xoguhu tilmaamayaan kaasi oo la filayo dhawaan la shaaciyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga sugayaa 24 saac ee soo socota inuu ku dhawaaqo wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Keenan iyo Xamza Cabdi Barre ayaa labada shakhsi ee loo saadaalinayo in midkood uu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka siiba wararka hoose ayaa sheegaya in Xamza Barre oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya imika isla markaana ka soo jeeda Jubbaland farta lagu fiiqayo inuu noqdo hogaamiyaha ama inuu noqdo wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya Xamza oo ka tirsan xisbiga UPD oo hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa Xamza Barre uu ahaa gudoomiyihii doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland kadib dib u doorashadii Axmed Madoobe ee sanadii 2019 waxa uu yahay aqoonyahan la filayo inuu ka soo baxo xilkaasi hadii loo magacaabo Mr Xamza Barre ayaa ku dhashay degmada Afmadow hadii uu helo jagadaasi waxa sare u kacaysa hanaankiisa siyaasadeed sida xogaha hoose ay sheegayaan xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrinta ku saabsan maqnaashaha Ikraan Tahliil oo kamid ah saraakiisha hay'adda NISA kadib agaasimihii hore ee haddaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ku eedeeyay in ay dileen al-shabaab una qorsheeyay agaasimaha cusub ee hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo maanta hadal ka jeediyay golaha shacabka ayaa sheegay in uusan ku qancin isku eedeynta ama farisku fiiqa maqnaashaha Ikraan Tahliil ee mas'uuliyiinta dalka u sareysa iyo hadalkii ka soo yeeray agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa uu sheegay iyaga oo ah tira xildhibaano ah oo si gaar ah ugu matala Ikraan Tahliil golaha shacabka Soomaaliya ay arkeen in si cadaalad darro ah loo wajahay kiiska Ikraan isla markaana mas'uuliyiintii la rabay inay baaraan iyagoo ay isku eedeynayaan waxay dalbanayaan in guddi baara oo ka socda golaha shacabka iyo xafiiska madaxweynaha loo saaro sida uu sheegay xildhibaan Jeeso kiiska maqnaashaha Ikraan Tahliil ayaa sanad jirsaday waxaana madaxdii hore ee NISA ay hore u sheegeen inay dileen ururka al-shabaab ha yeeshee waalidiinta Ikraan ayaa sheegay in ay gabadhoodu ku maqan tahay gudaha hay'adda NISA xilligii uu hay'addaasi hoggaanka ka ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa maanta barqadii la sheegay in lagu weeraray gudaha magaalada Muqdisho amar uu bixiyay agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa la sheegay in lagu beegsaday gudoomiye Baashi iyadoo la doonayay in laga soo qaado baabuur ay lahayd hay'adda NISA kuwaasi oo isticmaali jiray gudoomiye Baashi ciidamada ka tirsan NISA ayaa weeraray ilaalada gudoomiye Baashi iyagoo doonayay in ay awood uga soo qaadaan gaadiid ay iska leedahay NISA balse ay ka dhaga fureyseen inay soo wareejiyaan Mahad Salaad agaasimaha NISA ayaa amray saraakiisha sirdoonka inay ka soo qaadaan cid walba oo haysata gaadiid iyo agab ay leedahay hay'addaasi waa markii labaad uu bixiyo Mahad Salaad
amar la doonaya in looga soo farmaroojiyo cid kasta oo haysata qalabka hay-adda niso ma jirto wax war oo ka soo baxay taliska nisa iyo guddoomiyaha baashe oo ku aadan weerarkii maanta ka dhacay hoyga guddoomiyaha maxkamadda sare hagaag weli waxaad nagala socotaan NTN TV faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa dil saaka ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dilkaani sida la sheegay ay geysteen kooxo basoolada ku hubaysan sida wararku sheegayaan dilka waxa uu si gaar ah uga dhacay xaafadda Daalo ee degmada Howlwadaaga ee magaalada Muqdisho waxaana marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Warsama Ismaaciil wuxuu ka mid ahaa ergadii dhawaan soo dooratay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo dhawaan loo magacaabay madaxa cusub ee hay'adda nisa dad goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in marxuumka la toogtay aroortii hore ee saaka xilli uu ka soo baxay hoygiisa uuna ku sii jeeday goob shaqo rasaasta ayaa la sheegay inay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa eelka marxuumka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay sheegeen in marxuumka ay jireen hanjabaado uga imaanayay telefoonno la sheegay in looga soo hanjabeeyay Professor Cabdiwahaab Sheekh Samed oo ah agaasimaha fulinta ee macadka dimuqraadiyadda iyo istiraatiijiyadda ee Geeska Afrika ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu furo baaritaan ku saabsan afduubkii sanadkii hore loo geystay Cabdiwahaab Sheekh Samed ayaa sheegay inuu walaac ku abuuray waraysi uu Fahad Yaasiin kaga hadlay afduubkiisii waraysigaas oo Fahad Yaasiin uu ku sheegay ra'iisul wasaare Rooble inuu ka dambeeyay afduubkiisa sida uu sheegay Fahad Yaasiin ayaa daraad sheegay inuu hayo macluumaad badan oo ku saabsan afduubka professorka isagoo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhibanaha la wadaago afduubkiisa iyo qorshihii la xiriiray Professor Cabdiwahaab waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay inuusan weli garanaynin naftiisa qatarta ku jirta iyo ujeedka laga leeyahay afduubkiisa uuna jahwareer ka qaaday hadalkii ka soo yeeray Fahad Yaasiin waxaa magaalada Ceergaabe ee gobolka Sanaag lagu xiray wariyaal ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo ku marayay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag saxafiyiinta xabsiga loo taxaabay ayaa kala ah Maxamed Xasan Dhalo Kilwa Aadan iyo Cabdicasiis Xidig iyo Maxamed Jaamac wariyaashan ayaa sida la sheegay waxa la xiray markii ay soo galeen magaalada Ceergaabe ee gobolka Sanaag halkaas oo shalay uu gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo uu shirar leeyahay isimada gobolka Sanaag ilaa ayaa hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xabsiga wariyaashan ama xariga wariyaashan hayeeshee waxaa loo aanaynayaa siyaasadaha isku dhex yaacsan ee Soomaaliland iyo madaxweyne Biixi oo halkaasi gaaray waxaa saaka degan xaaladda deegaanka bacda ee gobolka Hiiraan oo xalay dagaal qaraar uu ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamo macaawisleyda ah waxaana saraakiisha ciidamada macaawisleyda ah ay soo bandhigeen hub ay sheegeen in ay lahaayeen al-shabaab ayna ka furteen sargaal lagu magacaabo Xasan Fanax oo hogaaminayay weerarkii xalay ay ku qaadeen al-shabaab fariisin ay ku lahaayeen deegaanka bacda oo hoostaga degmada Matabaan ee waqooyi gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ka furteen hub iyo agab kale waxa uu sheegay inay hayaan hubkan kuna raad joogaan dhaawaca saraakiil ka tirsan al-shabaab sidoo kale ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ee deegaanadaasi ka socda dhawaan guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa si toos ah ugu baaqay la dagaalanka al-shabaab macaawisley waa dadka deegaanka oo si gaar ah u abaabulan isla markaana ku hawlan sidii ay isaga sifayn lahaayeen dhibaatada al-shabaab hagaag qodobada dabadda Ruushka ayaa 100,000 oo qof ku dilay magaalada Kiev ee dhacda waqooyi bari ee Ukraine kadib markii ciidamada Ruushku si aan kala sooc lahayn ay halkaasi ugu garaaceen bambaanooyinka la mamnuucay ee Cluster sida laga soo xigtay hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International Amnesty waxa ay sheegtay inay heshay cadeymo muujinaya ciidamada Ruushka oo aan si kala joog lahayn ugu beegsanaya bambaanooyinka loo yaqaano Cluster gaar ahaan kuwa saameynta xooggan geysta warbaahinta oo booqatay 5 goobood oo kala duwan waxa ay sheegtay inay halkaasi ku soo arkeen saameynta uu yeeshay bambaanooyinkaasi waxay sidoo kale sheegeen inay arkeen dhibaatooyin loo geystay xaafado ay weli dad ku harsan yihiin koox hubaysan ayaa ugu yaraan 29 qofood ka afduubtay gobolka Zamfara ee waqooyi bari ama waqooyi galbeed ee Nigeria sida ay boolisku sheegeen dadkan la afduubtay ayaa ka soo laabtay xaflad aroos waxaana la sheegay in kooxdu hubaysan ay weerar gaadma ah ku qaadeen kolonyo ay la socdeen dadkani
dadkan la qafaashay ayaa u badnaa ganacsato iyo dad xafladda ka soo laabtay waxaana mar qura lagu afduubtay gaadiid ay wateen kooxdaas burcadaayi ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee loo afduubtay iyo halka ay ku dambeeyaan warkii aad kala socoteen NTN TV waanaga intaas waad ku mahadsantihiin daawashada warkaani NTN TV